رمضان كريم برنامج كعافيمادك وعيقليبتا بش رمضان كالكال هوسبيتال كلا سو wax ka ugu xanuunada dilaaca bisha Ramadaan sida gastric xanuunada sakarowga calool fadhiga iyo kuwa kale oo badan kala soo maalin kasta baraha bulshada bismillaah magacaygu waa Dr. Najib Hussein waxaan rabaa inaan ka hadlo faa'iidooyinka caafimaad ee uu leeyahay soonka sida Ilaahay Quraanka noogu sheegay caafimaadku soonku wuxuu leeyahay faa'iidooyin caafimaad ayad Quraanka waxay yidhi wanta soomu khayru lakum in kuntum ta'lamuun waxaan rabaa ilaa ay 6 faa'iido oo muhiim u ah soonka caafimaadku muhiim oo soonku leeyahay aan ka hadlo faa'iido koowaad waxay tahay inuu sare u qaado caafimaadka wadnaha baariyaasha waxay sheegaan in oo qofka markuu sooman yahay blood pressure-kiisa ama cadaadiska jirka dhiigga uu hooseeyo waxay kaloo sheegaan in cholesterol ama dufanka jirka ay ayadan hooseyso labadaas waxay keenayaan inuu sare u kaco caafimaadka wadnaha wuxuu kaloo kor u qaadaa soonka faa'iido labaad ay tahay caafimaadka dheefshiidka markuu qofka waxba cunin wuxuu ku jiraa resting ama nasiino midaas waxaa la arkaa in ayadan caabuqa gudihiisa ka dhacay u yaraado caafimaadkiisana kor u kaco faa'iidada saddexaad uu leeyahay waxaa la arkaa in uu kor u kacdo caafimaadka iyo shaqada maskaxda waxay keentaa ayadana waxaa la sheegaa dadka soonka badan inay ayagan xusuustooda iyo waxgarashadooda ay badan tahay cudurrada gabowga la xiriiro sida Alzheimer disease ama cudurka asaasiga la yiraahdo asagana uu ku yar yahay dadka soonkooda u badan yahay faa'iidada afraad uu leeyahay ayadana waxay tahay inuu kor u qaado difaaca jirka qofku markuu sooman yahay ama dadka soonka badan waxaa la arkaa difaaca jirkooda inuu aad u sareeyo waxaa kaloo faa'iidada shanaad ay tahay ayadana in uu leeyahay weight loss wax la yiraahdo ama qofka miisaanka jirkiisa oo yaraado qofka markuu sooman yahay energy wuxuu ka helaa oo burburinaya jirka fatiski ama dufantii u keensaneen halkaas waxaa ka imaanaya inuu qofka cayilkiisa u yaraado cudurro badan oo cayilka la xiriiro ama fatiska ama qofka dufanta ku badan la xiriiro meesha ka baxaya ayagana faa'iidada lixaad uu leeyahay waxaa waaye in blood sugar level-ka ama sokorta dhiigga ay yaraado dadka sokorta khatarta ugu jirto meesha ayagana ay badbaadaan soonkan aad ugu fiican yahay ayadoo la sheego in qofka dad wax cunay sokortan ay yaraanayso insulinta jirka uu soo saarayna shaqadeena fiicnaanayso baariyaasha waxay ku daraan in qofka isbuucii 2 maalin si joogto ah u soomo caafimaadkiisa ay aad u sareynayso annagana aan uga dayanayno soo baranayno Maxamed sallallahu alayhi wasallam inuu isbuucii 2 maalin u soomi jiray maalinta Khamiista iyo maalinta Isniinta waxaan ku boorinaynaa dadka inay soonka badiyaan si ajarna u helaan caafimaadkooda kor u kaco Ramadaan Kariim. Assalaamu alaykum wa rahmatullah.